gudoomiyaha wacyigelinta North America ee xisbiga muxaafadka ee kulmiye Cabdicasiis Ismaaciil Ducaale oo warfidiyeenada kula hadlay magaalada Burco ayaa ugu horeyn soo dhaweeyay golaha wasiirada cusub ee uu soo dhisay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi. runtii waxaan jecelahay inaan ka hadlo aniga oo ku sugan maanta gobolka Togdheer ahna gudoomiyaha wacyigelinta xisbiga kulmiye ee qurba jooga gaar ahaan North America. waxaan kaloo halkan hambaliyo iyo taageero uga diraya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo golihiisa cusub ee wasiirada gaar ahaan wasiirka arrimaha gudaha Mujaahid Maxamed Kaahin iyo dhammaan inta kale aanan magacaabinba. geesta kale Cabdicasiis Ismaaciil Ducaale waxa uu eedamo kulul u jeediyay gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamuud Cali Salebaan Ramaax isagoo ku dhaliilay inuu wado qorshayaal ku kala qaybinayo bulshada gobolka Togdheer waxaana xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay guddi u soo dirto maamul xuba baahsan oo uu sheegay inay ka taagan tahay gobolka Togdheer. inaan ka hadlo aafada gobolka hareysay ee gudoomiyaha gobolka Togdheer Ramaax Cali haysato oo runtii in badan dhibaato ku hayay gobolka Togdheer horeyna gobolada kale ee Soomaaliland haday tahay Boorame iyo hadii ay tahay Ceeri Gaabo iyo hadii ay tahay Laascaanood intaba dadkii ku sugnaa markaa ay shacabka ahaa iyo maamulkii meel walba ka jiray gobolada iska hor imaad iyo dhibaato ku hayay maantana runtii tii ka wada gobolka Togdheer iyadoo runtii horey looga bartay waxyaabaha noocaas oo aanu ahayn qofaan waxa lagu aqoon laakiin maanta uu ku darsaday ficil aan horey loo arag iyadoo taasi ay sababi karto iska hor imaad iyo dhibaato ka dhalata shacabka ku wada nool gobolka iyo xukuumadii iyo dadkii inuu iska hor keeno marka waxaanu xukuumadda iyo dawladda aanu ka codsanayna aanu taageerada u nahay in ninka gobolka laga qabto gudoomiyaha gobolka ah iyadoo ninkaas sida aanu ognahay ee wararku ay sheegayaan runtii ka haysta xagga awood uu ka haysto xagga dawladda uu isleeyahay cid wax kuma samayn karto waayo de qof xun oo marba meel loo bedelo lama arko qofku marka dadku ay diidaan de shaqada laga qaadaa waxaan xukuumadda ka codsanayna haddaanu nahay taageerayaasheedii u soo halgamay ee guusha maanta ay ku fadhido u sababta ahaa in arrinka gobolka ka taagan wax laga qabto oo xukuumaddu arrinka ay u fiirsato ninkaana loo soo diray guddi baaritaan ku samaysa waxa uu gobolka ka samaynayo. Axmed Salebaan Carab Axmed Kaafi Bulsha TV Burco.